kiiska burugsaniyo sharciga murantiiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska ka mida mataanaha nabadgelyada baraha kiiska burugsaniyo sharciga murantiiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska ka mida السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن أخيارتا هودا نغدا ونايساي ميل والبو الدنيا كجوكتان waxaad ku soo dhawaataan warka booliska dawladdeegaanka Soomaalida warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yuusuf qodobada ugu door karoonaya warkani ku daawan doontaan waxa kamid ah booliska degmada Doolaade ee gobolka Liibaan ayaa gacanta ku dhigay 23 xubnood oo ay ku soo qabteen maandooriyaal kala duwan shirkii toddobaadlaha ee ciidanka booliska ayaa ka qabsoomay xarunta komishinka booliska iyo maamulka xaafadda toonaad oo iskaashanaya ayaa soo qabtay xubno lagu soo eedeeyay inay jabsadeen baqaaro qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda oo dhameystiran u diyaar garoow shirkii toddobaadlaha ee ciidanka booliska ayaa ka qabsoomay xarunta komishinka booliska warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay wariye ciiga Axmed Buux shirkii toddobaadlaha ee lagu qiimeynayay waxqabadka booliska ee toddobaadkii tagay ayaa ka qabsoomay barxadda xarunta komishinka booliska ee dawladdeegaanka Soomaalida shirkan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha komishinka booliska dawladdeegaanka Soomaalida oo kamid ah komishinar ku-xigeenka komishinka booliska ee dawladdeegaanka Soomaalida gaashaanle sare Cali Cabdi Jabbaar saraakiisha qaybahooda kala duwan ciidamada ka howlgala caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga iyo xarunta guud ee komishinka booliska dawladdeegaanka shirkan ayaa intii u socday waxa qiimeyn lagu sameeyay nidaamkii fulineed ee ay uga qayb qaateen xubnaha ciidanka boolisku dhinacyada sareynta sharciga ilaalinta anshaxa ciidanimo ilaalinta saacadaha shaqada toosinta caqabadihii ka jiray dhinaca shaqada iyo sidii loo adkeyn lahaa nidaamka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya booliska iyo bulshada iyo qodobo kale shirkan oo hogaaminaya komishineer ku-xigeenka komishinka booliska ee dawladdeegaanka Soomaalida gaashaanle sare Cali Cabdi Jabbaar oo fiiro gaar ah u yeelanayay qiimeynta shaqadii la qabtay toddobaadkii tagay ku ammaanay ciidanka boolisku in ay shacabka deegaanka u hayaan mas'uuliyad culus oo dhinac walba taabanaysa waxa sidoo kale farta uu ku fiiqay in xubnaha ciidanka looga baahan yahay in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda isla markaana ka madax banaanadaan arrimaha sumcad-darrada u keenaya booliska komishinar ku-xigeenka oo gabagabadii shirkii toddobaadlaha ka hadlayay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin markii la kala saaray ee la kala gartay lagu kala garta qiimeyntaas ama shirkan kadib wixii qabsoomi waayey muxuu u qabsoomi waayey maxaa sabab u ahaa kadib waxaa looga gudbaya habkii loo qaban lahaa iyo wixii ka hor yimid inta la garto sidii maxaan ku idhaahdaa hawsha looga gudbi lahaa ee loo sii xalin lahaa kadib wixii qabsoomi waayey habkii loo qaban lahaa ee turunturooyinkii ka hor yimid ama istaakuladii ka hor yimid looga gudbi lahaa iyo toddobaadka dambe shaqadii la qaban lahaa iyo qorshaheedii habkii loo dejin lahaa iyo directionadeedii in laga bixiyo iyo tilmaamaheedii shirkan ujeedadiisu iyo dulucda ujeedadiisu sidaa weeye guud ahaan waxaa kale oo uu daaranaa shirkani oo uu galabta saaka maadaama ay khamiis tahay oo sabtidii uu soo daba maray muxuu tahay khamiistani sabti bay ahayd shirkani uu ahaan jiray waxaan khamiis ugu soo raray oo aanu keennay mar walba ma aha in ay xubno kooban uun oo dadka dambi ka hortagga ciidanka u taagan habeen iyo maalin magaalada ama amniga ku hawlan uun keliya in la qiimeeyo shaqadooda ma aha hataa shaqada dhibaatada ay sheegaan kuwaasi ciddii xallin lahayd xafiisyada istaafkii xafiisyadu si ay istaafka xafiisyadu uga soo qayb galaan ayaan shirkii gebi ahaantiisaba waxaan u soo raray in subaxa khamiista laga dhigo subaxa khamiista khamiis kasta 6 subaxnimo
ilaa inta aynan labada gaadhin ama hal saac iyo badh in lagu dhammaystiro shirkaas lagu qiimeeyo shaqadii ooy u dhannaadaan ciidankii dembi kahortagga oo keliya iyadaynan ahayn baadhistii qaybihii booliska kala duwanaa istaafyadii xafiiska dhammaan in loo dhannaado oo xafiis kasta cabashada ama waxyaabaha dhaliilaha lagu soo dhigayo qiimeynta sabtida lagu soo dhigi jiray si uu xafiiskii jawaabta ka bixin lahaa laftiisa uu u taagnaado ama mas'uulkii ka bixin lahaa saasaan ugu soo raray khamiista hadda kadibna shirkeennani wuxuu noqon doonaa ama kulankeenani subax kasta oo khamiis toddobaadkiiba noqon doonaa insha Allah haddii la yiraahdo booliska degmada Doolacado ee gobolka Liibaan ayaa gacanta ku soo dhigay 23 xubnood oo ay ku soo qabteen maandooriyaal kala duwan warbixin amuurtaas ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedan doona wariye Cabdinaasir Seeraar Guhad booliska degmada Doolacado ee gobolka Liibaan oo kaashanaya maamulka iyo hay'adaha amniga degmada ayaa gacanta ku dhigay 23 xubnood oo ay ku qabteen 50 kiilo 229 duub oo xashiisha iyo 272 xabo oo shiishada lagu daray tufaaxa iyo kaniiniga maandooriyaha iyo tuubooyinka lagu dhuuqo shiishadaha taas oo la rabay in lagu waxyeelayo dhalinyarada degmada maandooriyahan oo laga keenay magaalada Shashabane ayaa booliska oo kaashanaya shacabka ku qabtay qabalaha shufto oo ka tirsan degmada Doolacado ee gobolka Liibaan kuwaasoo u soo gudbiyeen xeer ilaalinta ayaa maxkamadda degmada Doolacado xukun ku riday 23 xubnood oo lagu soo eedeeyay ka ganacsiga maandooriyaha xukunkaasi kadib hay'adaha cadaaladda degmada Doolacado ee gobolka Liibaan oo si wada jira maandooriyahan ugu gubay duleedka degmada ayaa waxaa warbaahinta booliska halkaasi kula hadlay gudoomiyaha maxkamadda degmada Doolacado ee gobolka Liibaan mudane Yuusuf Mataan Aadan iyo taliyaha booliska degmada Doolacado gaashaale sare Cabdi Ibrahim Cabdi waxaa mahad balaaran leh cidii ka shaqeysay oo soo qabatay xubnaha booliska iyo inta la shaqeysa waxaa kaloo mahad leh garsoorayaashii go'aanka ka gaaray oo sidaa kula xukumay waxaa kaloo halkaan ku baraarujinayaa dalka gudihiisa ayuu ka baxaa xashiishkan dalkana waa hal dal baa leeyahay Shashabana xashiishka laga soo qaado dool waa lagu qabtaa imsaakeelu soo mara imsaamagalu soo mara xashiish sababta looga beera Shashabana doolowna loo qabto kuleeba dawladda taa inay dib u eegtaa ayaa loo baahan yahay waayo waxa qof kasta loo qabto wuxuu sheegaa Shashabana ka soo qaaday waayo beera ayaa ka tabcan buu yiraahdaa run ahaantii maanta halkan waxaan ku gubeynay waxa la wixii darooga ahaa ee degmada ku sugnaa aan qabanay annagoo iskaashanayna maamulka degmada iyo hay'adaha nabadgelyada waxaan qabanay xashiish dhan 50 kiilo iyo 229 duub iyo draagiska la dhaho asna xashiishka ee dhalinyarta ajalka soo kacayso ayadna 272 xabo oo shiisha ah saadarta hadda maanta halkan waxaan ku go'aaminay in lagu gubo mar labaad waxaan shacabka degmada Doolacado aan ku bogaadinayaa sida wanaagsan ay noola shaqeynayeen inay mar labaad noola shaqeeyaan dhalinyarta iyo ciyaalka ay dhaleen ay waaniyaan gudoomiyaha degmada Doolacado ee gobolka Liibaan oo isna dhinaciisa ka hadlay ayaa sheegay in soo qabashada maandooriyahan iyo 23 xubnood ay suurto gelisay wada shaqeynta ballaaran ee ka dhaxaysa booliska iyo shacabka iyagoo kaashanay bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana ugu baaqay dhammaan cid kastoo ku nool degmada Doolacado in si wada jir looga qayb qaato sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka baan uu ku hayo bulshada ku dhaqan degmada dhammaan maandooriyaha laga soo gelinaya xuduudka xadka booliska iyo maamulka xaafadda tobanaad oo iskaashanaya ayaa soo qabtay xubno lagu soo eedeeyay inay jabsadeen bakhaaro warbixin amuurtaas ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay wariye Hodan Koosar isku xidhka booliska iyo bulshada ayaa ah mid faa'iido u leh bulshada isla markaana u sahlaya si fudud loo qabto wixii bulshada dhibaateynaya iyadoo loo adeegsanayo nidaamka isku xidhka booliska iyo bulshada ayaa gacanta lagu soo dhigay 4 nin oo ah tuuga casriyeysan kuwaasi oo qaarkood ay isticmaalayeen diriis ciidan kuwa kalena ay wateen qalab u sahlaya si fudud ay wax ugu jabsadaan haddaba tuugadan oo jabsaday meheradooyin kala duwan oo ku yaala xaafadda tobnaad kuwaasi oo kala ah farmasi bakhaar dukaan iyo guryo xaafadeed haddaba taliyaha booliska xaafadda tobnaad saddex digle Cabdullaahi Cumar iyo hoggaanka nabadgelyada xaafadda tobnaad Farxaan Cabdi Cumar ayaa nooga warbixiyay habka ay u soo qabteen tuugada casriyeysan
hadda waxa haddii aan ka warbixiyo tuugtani aan soo qabanay waa tuugta magaranaysaa magaalada dhammaysay ee shacabka turunturada ku haysa weeyo habeennimadii magaranaysaa ilaa iyo habeen hore ilaa saddexdan habeen oo dhanba howlgalkii aan ku jirnay waa tuugtii aan ka soo qabanay weeyo meesha howlgalkii booliska aan ku jirnay si aan magaranaysaa ummadda uga qabanno tuugtan markaa tuugtii waxaan ku guulaysanay in meel jabiso ku dhex jirta iyo in magaranaysaa markaa un jabinaysa iyo in lacag magaranaysaa dhacaysa intiiba waan ku guulaysanay intiina gacantaan ku haynaa tuugtana magaranaysaa inaan ka sifeyno ummaddana magaranaysaa ay si nabadgelyo ah ku seexato waxa unugu jirro weeyo shaqada har iyo habeenna waxaan ku jirraa si aan magaranaysaa tuugta iyo wixii burcada baan ugu soo dhigi lahayn magaranaysaa sharciga ugu soo dhaweyn lahayn dadkiina waan haynaa sharcigan waanu ku dhaweynaynaa marka howlaha amnigan ku jirnay toddobaadkan tuugtaa ka mid ahayd tuugtii oon habeenadan aan ka howlgelaynay qaar ka mida waan ku guulaysanay alxamdulilah qaarkaas oo si casriyaysan u hubaysan oo wata baalahan jiingadaha korka lagaga jaro guriga intay korka ka fulaan aayar korka lagaga jarayay iyo baalkii maqaskii albaabada lagu jebinayay iyagoo wata ayaan kusoo guulaysanay xalay mooye habeen hore waxay saacaddu 4tii dambe iyo meelaha eedaankii subaxa adii wax yar ka hor yahay marka iyagoo guriga ku jabsanaya iyo booliska iyo annagoo soconaya aragnay way yaaceen marka mid baa meel luuqa noo galay kii luuqi markaan ka daba galay wuxuu noola soo baxay bahashii jiingada ku jiray askarigii dambi hortagay la socday iyo ku dhufaysidii wiilka askariga ku socday baa ka qabtay kii buu haddana feeru galiyay markii dambe jujuub baan ku soo qabanay annagoo waxba yeelin oo intaan qalabkii ka dhignay yaanu sharciga ku soo dhaweyn ninkiina waan haynaa mid ka midana uu baxsaday kaana oo gacanta waan ku haynaa kuwii kalena lagu soo qabtay bakaaradii dukaanada siduu taliyuhu sheegay iyaguna way ku jiraan marka kooxaas oo dhan sharciga ayaan horgeynaynaa eega waxa dhibaatada magaalada ku haya waa tuugtan ka timid meelaha kale eega ciyaalkii China groupka ay wixii markaan meel saareen ka nasanay tuugadii meelaha kale ka imanaysa tababarayd yaa hadda magaalada ku soo badanaysa insha Allah taana waan ka sifayn doonaa waxa hadhay waana ku hawl jiraa ciidanka ilaalada amniga wadooyinka ayaa tallaabo sharciga waafaqsan ka qaaday gaadiidka yaryar ee xilliyada dambe habeenkii ka dhex shaqeeya magaalada Jigjiga warkana waxa inoo soo jeediyay wariye Cige Axmed Buux komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida laantiisa amniga wadooyinka ayaa soo qabtay bajaajyo kala duwan oo lagu eedeeyay inay shacabka u geysanayeen falal boob iyo waxyeelooyin isku geysanayay isla markaana shaqeynaya habeenka qaybihiisa dambe bajaajyadan oo ah kuwa iyagu caado ka dhigtay iyagoo koox u wada socda qaarkoodna ayna haysan sharcigii oo dhammaystiran howlgalkan ay sameeyeen ciidamada amniga wadooyinka ayaa waxay ku ogaadeen in ay bajaajyada habeenkii shaqeeya ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka u geysta shacabka isla markaana la soo qabtay tallaabooyin sharciga waafaqsan laga qaaday iyada oo qaar bajaajleyda ka midana halkaasi ganaaxyo kala duwan la saaray haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahan ayaa wax ka weydiinay saddex digle dhaqane Xuseen Maxamed ku-xigeenka madaxa amniga wadooyinka ee komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida ay nooga waramo sababaha kala duwan ee lagu soo qabtay bajaajyadan horta waxa weeyaan sideeda waxa bajaaj la yiraahdo aad bay u dhab badan tahay deegaankana dib bay ku haysaa bulshadana wax adeega oo maaragtay ay bixiyaan ma jiraan haddana magaalada aad bay ugu soo badanaysaa toddobaadka hadda waxaa taarika qaatay ku dhowaan 1,000 xabo ilaa haddana taarika bixintii way socotaa waalidkana dib bay ku haysaa maxaa weeyaan ilmihii yaraa markuu qaangaar noqdo wuxuu waalidku ku cadaadiyay in bajaaj loo iibiyo bulshadina adeegu ma fuliyaan oo maxaa weeyaan maalintii idil waa la jiifaa habeenkiina oo la soo shaqo tagaa taasoo maaragtay nidaam ahaanna aan fiicneen qofka bini'aadanka maalintana hala shaqaysto habeenkiina hala saaxda ayay ahayd tii aydeeda waxaa loo bedelay in maalintiina la hurdo habeenkiina la shaqeeyo bajaajyada marka habeenka shaqaynaya waa bajaajyo dhac iyo boob usoo shaqo taga weeyaan kuwa adeeg bixin usoo shaqo taga maaha boolisku
marka war isgaarsiintii ee koomka habeenka adeegaysatay inta baajaaj oo ama maaragtay dad dhacday ama gabar farxumaysay ama xashiish cabtay qaylada yeelaysa magaalada wadayaabaysaa taas annagoo ka duulayna waxa ay booliska go'aansadeen haddii la gaaro 4 saac wixii ka dambeeya wixii baajaaj oo socoto in laga qabto bulshada marka waa la soo qabtay tallaabada sharciga ku habbooneedna waa la mariyay waa la ganaaxay tan baajaajka taa weeyaan tan magaalada horumar kasta wuxuu leeyahay culays iyo jaam deegaankeenna gaadiidka aad buu ugu soo fara badanayaa waddooyinka hore way burbureen wixii la isticmaalaya hadda waa waddooyin yar inkastoo hadda dayactir fiican oo ay haddana ay socdaan bulshadeenna marka waddooyinkii ayagoo awal hore nagu yaray bulshada waxay ku ganacsanaysaa waddooyinka dhexdooda tusaalahaan hadda haddaan soo qaato 3 waddo oo isdaba taala halkan hoolka dhabarkiisa ilaa waddada Ararso waddada Haabaana horumarta kulli waxay noqdeen waddooyin la xiray oo lagu ganacsado gaadiidka meel kale ay maraan ma leh marka bulshada waxaan oran lahaa dadka waddooyinkii ku ganacsanay inay ka waantoobaan waddooyinka ay baneeyaan gaadiid baa loogu talagalay wax kasta oo falxun wadana in booliska lala shaqeeyo hadday baajaaj noqoto iyo hadday gaari kale noqotaba wixii si xun u socday in booliska laga soo wargeliyo oo maaragtay nabadgelyada hal dhinac looga soo wada joosto ayaan ku wargelinaa ku dhaqanka iyo ilaalinta shuruucda kala duwan ee u yaala gaadiidka ayaa waxa laga maarmaan ah in ay mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaashu ay ku dhaqmaan isla markaana ay ogaadaan waxyaabaha ay ka shaqeynayaan gaadiidkooda yaryari ganacsatada ku nool magaalada Jigjiga ayaa cabasho ka muujiyay tuugada casriyeysan ee ku soo badanaya magaalada Jigjiga waxaa jirta tuugo ku soo badanaysa bariyahan dambe magaalada Jigjiga oo halkaasina marka dambana waqtiyada gelinka dambe ah ay aad u dhibaateynayaan hasa ahaatee laakiin intuu dawladda caawinaya booliska ay naga caawin kareen naga caawiyaan laakiin waxaa jirta tuugo aad ugu soo badanaysa kuwaasoo gelinka dambe si tuugnimo ah oo qarsoodi ah wax u dhacaya oo ka faa'iideysanaya bulshada ganacsatada ah laakiin ilamahan in mad garanaysaa ay saas ku baxsanayaan ama ay ku sii wadayaan laakiin hadda waxa ka dambeeyana waa in waxaan jecelnahay in laga garabsiyo inkastoo aad ugu soo badanayaan bulshada bariyahan dambaba oo habeenadii saqda dhaxoo kale ay mad garanaysaa dadka dhacaan waana tuuga ka imaatay gobolada kale oo tuugan deegaanka u dhalin weeyaan tuuga casriyeysan oo ka weeraraya jeebka adigoon warhaynin marka qaar marka gaariga raacayso marka aad ka degayso waa labada xaaladood ee ugu daran ee aadan iska warhayninin ee laga faa'iideysanayo marka waxaan jeclaan lahaa meelahaas camal in laga warhayo markasto halka bajaajka laga raacayo iyo meesha laga degayo waa meelaha ay ka faa'iideystaan halka in iyada fiiro gaar ah loo yeesho ayaa qurux badan sidoo kale meelaha adeegu badan yahay dadku ay jaamka yihiin bay ka faa'iideystaan marka adigoo meel joogo ganacsi weyn joogo laguma imanayo laakiin waxa laga weerarayaa waa taleefankaaga jeebada gashatay iyo lacag camal marka laga dhacayo xilliga banka wax ka soo saaranaysa camal xarumahaas ay aad ugu badan yihiin marka xarumaha in fiiro gaar ah la siiyo ayaan ku talin lahaa wallaahi haddii aan ka hadlo tuugada dee bulshada dhib badan bay ku hayaan dhibaatooyinkana lama soo koobi karo dee waayo haddii yacni la dhaho waa la falanqayn dee aad bay u badan tahay waayo dad badan dhibaato badan bay bulshada ku hayaan waxaa ka mid a dee hooyo Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo maanta yacni hantidooda iska yar tahay oo de maanta wixii haysteen ma laga qaato taasina dee dhib weyn buu ku keenayaa qofku markaa dee aniga hantida haddii aan ka hadlo dee wallaahi aniga dee horta lama tirin karo waayo shayga intuu iga xaday lacagteeda moobilkayga lacala anigoo xataa moobil la isu diray wallaahi dee si aan ku helay aad garanayso baa wallaahi layga qaatay dee markaa dee qofku tuugada waxaan dhihi lahaa anu dawladda in ay shacabka ay tuugada ka qabato oo yacni dadka wax dhacaya dee maanta haddii yacni shayada yar uu qaadanayo dee hadhow wuxuu keenan karaa qofku in uu alaabo waaweyn uu ka qaadi karo dee markaa taasina waxaa ka mid ay dhib ku tahay ciidamada amniga ku tahay oo waayo waxaan u soo jeedinayaa dhaliilaha ciidanka sababtoo haddii aan tuugada maanta laga qaban dee maxay shacabkiiba maxaa yacni laga caawinaya marka waxaan dhihi karaa dadka hantida yacni iska hantidoodu yar tahay in wax laga qabto oo yacni tuugada laga qabto
ciidanka dambi koortaga oo ku guuleystay soo qabashada 2 nin oo qalabka isgaarsiinta ka soo xaday agagaarka xaafadda shanaad warkaana waxa ay noo soo jeedinaya wariye Cabdinaasir Seerar labada nin oo lagu soo eedeeyay inay agab ka soo xadeen agagaarka xaafadda shanaad kuwaas oo qalabkan ku soo qaateen xilli habeenimo bajaaj lambarkeedu yahay 133 Zoma isla markaana doonayay inay iibsadaan ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka dambi koortaga ee ka shaqeynayay amniga magaalada Jigjiga isla markaana u taagan sidii ay u ciribtiri lahaayeen dadka xatooyada kula kacaya hantida dawladda iyo midda shacabka labada nin oo lagu kala magacaabo Shukri Dhicis iyo Cabdifataax Axmed oo mid kamid ah darawal u ka bajaajtan halka ka kaleetana alaabtan uu ku soo qaatay bajaajtan kuwaasoo afkooda ka qirtay inay falkan galeen ayaa waxaan arintan xatooyada waxaan ka weydiinay saddex degla Xasan Kuulow Cismaan oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dambi koortaga ay ku qornaa goobta ay bajaajtan ka qabteen iyo labada nin eedeysane Cabdinaasir Seerar Guhaad warbaahinta booliska magaalada Jigjiga xaway bajaajkan waad aragtaan xaway xalay markay saacadu ahayd 2:00 dambe yaa bajaajkan yaan soo qabanay xaway waxaan ka qabanay iskooyska Axmed Gurey markii la gooyo xagga qumaadaha marka loo galo saacadii dambe ayadoo yaana tuug soo saartay laabtan soo saartay waxay hantidan waa hantidii shacabka adeeg loo fulay dawladda ay ugu targashay inay shacabku adeeg ku fishadaan waa xirkii xafiiska iyo waxay meelaha dawladda ay gelisay waxay loo isticmaalay waxay bajaajka lambarkiisu waxay waa 13306 uu garanayaa ninka bajaajka wata inuu tuug alaabtan soo xaday waxay waa lacag 400 riyaal baa lagu leeshiyay meesha ku qaaday waa xafiiska biyaha meesha geynayeen waa qabalayga 18 marka hadduu yacnaha yahay nin caafimaad qabo oo tuug asaga laftiisa soo tuug yahan goobta sharciga mu keen lahaa ama soo hadli lahaa uu sheegi lahaa muuse yeelin lacagtu wixii hata waxa kala jirta bajaajada saacadu markay tahay 6 saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo in ay wixii socdo ay tuug u la shaqeeyaan qarada la jabsadaa bajaaj baa qaadaysa alaab la soo qaaday bajaaj tana ugu yar xirkaas ugu yar markaan waxaan leeyahay bajaajada hadda walahan darad bajaajada la ganaxay sababta loo ganaxay waxayd maadaama habeenka geliga dambe markay shaqeeyaan dadka lagu dhacay baqaarada dukaamada cid wixii la jabsado dhan maadaama lagu dhacayo tuugga kalkaaliye waxay tuugla jiranayeen adeega ay gelinka dambe fulinayeen ba waxay tuugnimo ay tahay awgeed waxa loo ganaxay shacabkeena ma aaminsano in yacnaha ay caruurtooda ama bajaajada lagu shaqeynaya ay leeyihiin inay waxa ka shaqeynayaan laakiin waxa cadeyn ama daliil waa aragtaan bajaajka hadda meeshan lagu hayaan soo qabanay alaabta saaran kuwa kale oo ayagana sidaan camal waa soo dhigi doonaa hadduu leeyahay markaan waxaan leeyahay shacabka ha ogaadaan hantidooda waxay ka shaqeynayeen iyo waxay loo soo diray inay adeeg fuliyaan shacabka marka waxaan leeyahay aniga waxaa weyn degniinta hawa haataan leeyahay howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska ayaa lagu soo qabtay xubno xashad ku cabeeyay guri ku yaala xaafadda 11aad ee magaalada Jigjiga waxaana warbixin inaga siiyay ciidankii gacanta ku soo dhigay ciidanka sida wanaagsan informationkii aan muddada tabagalkan ku haynay ciidanka ka midho dhaliyay caawa ku guuleystay xashadii iyadii oo ijka fanjiya iyo dadkii isticmaalayay iyo ninkii ka ganacsanayay labadaba isla qabtay marka koowaad ciidankaasaan u mahad celinayaa marka labaad ciddii shacabka ahayd ee kaalinta libaax la ka qaadatay ee xogta keentay iyadana waan u mahad celinayaa intaa markii laga tago waxaan ugu baaqahayaa bulshada deegaanka ku nool ee bedelay dhalinyarada dadka dhalinyarada arrintan maandooriyahan xashada oo fal dembiyeed kasta isagoo horseed waa qofku markuu xashad cabo fal kastoo ku kacaya wax walboo samaynaya marka waxaan uga digayaa wiilasha yare mustaqbalka u baahan ee inay wax bartaan mustaqbal yeeshaan leh inay ka haraan xashishada bulshadana waxaan ugu baaqayaa
meel walba xashad lagu isticmaalayo ama lagu waxeeyo in loola soo socodsiiyo sida dadka bulshada qabanee 11aad ku dhaqan ay xogta u keenaan oo kale in loo keeno ciidankuna uga guuleystay oo caawa u keenay markaas bulshada waxaan leeyahay booliska lala shaqeeyo si dhawaa loola shaqeeyo amnigu kulligeen budan inoo yahay nabadgelyo aan ka wada shaqeyno dhammaan guud ahaan ciidanka deegaanka meel kastuu joogana waan u mahad celinaya shaqada ay hayaan iyo ka hortagga dembiyada inay lasii laba jibaaro yaan ciidanka ugu baaqayaa amniga lasii adkeeyo waxaan leeyahay aad baad mahadsantihi dhammaan ciidanka ka howlgala caasimadda baad mahadsantihi shaqada lasii dardargeliyo aniga iyo qadanahaas saraakiisha ka howlgasha information aan helay baa jira oo muddo aan daba soconin informationkeena waxa weeyaan bulshada ama dadka shacabka ah ee wada shaqeyno ayaa xogta noo keenay markii hore waanan ku guulaysan nasiib wanaag ciddii cabaysay iyo ciddii ka ganacsanaysay intaba gacantaan kusoo dhignay waxa weeyaan caawa howlgalkan aan ku guulaysanay information baan helnay in muddo aan dabagal ku helnay waxa weeyaan caawa aan ku guulaysanay H20 taasoo mataqaanaa gurigu uu yahay guri baasha lagu qaybiyo miisaankeedu waa ka baasha mataqaanaa lagu miisaamayay marka caawa aan ku soo guulaysay H20 baasha waan keenay gurigaasna wuxuu ku yaalaa qabalayga 11aad soonka afraad marka waan haynaa ciddii isticmaalaysay ciddii mataqaanaa baasha ka ganacsanaysay inta waan haynaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa warka booliska dowlad deegaanka Soomaalida warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yuusuf aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.